munaasabadani waxay mid ballaadhan isla markaasina ay goobjoog ka hayeen mas'uuliyiinta iyo maamulka kala duwan ee jaamacadda Togdheer ee magaalada Burco ay ahayd munaasabad lagu maamuusay 10 arday oo ka baxay jaamacadda Togdheer kuwaas oo qayb ka ah guuleystayaashii kontonka ahaa ee ku guuleystay shaqooyinkii kala duwan ee ka banaanaday gobolka Togdheer ee hay'adda shaqaalaha Soomaaliland imtixaanka ku qaaday munaasabadani ay soo qabanqaabiyeen ardayda kulliyadda informatics ee jaamacaddaasi Togdheer ayaa waxa ugu horreyntii halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay hormuudka kulliyaddaasi arday macallimiin iyo sidoo kale xubno ku hadlayay ardayda ka baxday jaamacadda Togdheer ee ku guuleystay shaqadaasi dhamaantoodbana waxay ka maqraatay kacaan tayada waxbarasho ee jaamacadda Togdheer waxaana yiraahdeen xafladani waxay daaran tahay ama ay ku salaysan tahay ardaydii jaamacaddan ka baxday sanadihii la soo dhaafay oo achievement wax lagu tilmaami karo ama wax ay guul ka soo hooyay hadafyadii ay u jaamacadda markii horeba u yimaadeen wax kamid ah waxaan leenahay aad baan idinku mahad celinaynaa guusha soo hoyseen ugu horreyn waxaan doonayaa inaan aad ugu mahad celiyo mahadnaq ardayda waajibka dhammaantiina wada saarnaa gudatay runtii guushiinaas waxay ka jawaabtay su'aal maskaxdeeda ka guuxaysay oo ahayd aqoonta halkan aad ka qaadataan ma noqon karaysaa mid aad ku shaqo gashaan idinkoon experience iyo 2 sano 3 sano 5 sano dambe shaqaynin isla markaas aad u qalin jabisaan ma ku shaqo ka tagi kartaan aqoonta halkan kala tagtaan ma hogaamin karaysaan aqoonyahanka ama graduates gobolka oo numberka ugu badan ma yeelan karaysaan dhiirigelinta iyo u hambalyeynta walaaladeen guuleystay ee nimadeyso jaamacadda Togdheer University aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ardayda guuleystay waxaan halkan u mahad celinayaa si gaar ah ugu mahad celinayaa ardayda ku guuleysatay kontonkii arday ee ay dawladdu bixisay 10 kamid ah inaan ku yeelano inagoo metelayna jaamacadda Togdheer waxa weeyaan waa guushaasi waa guul inoo soo wada hooyatay dhalinyarada guuleysatay waxaan leeyahay waxaad gaadheen mid kamid ah hadafyadiinii qofku wuxuu leeyahay yool isbadan shaqo in la helaa waa yool kamid ah maaha nolosha yoolkeedii waxaan rajaynayaa kuwii dalka iyo dadka iyo diinta waafaqla ka yeelo kuwii si horseeda maamul wanaag oo maamulada wax kamid ah hanaanka hadda shaqadu dhacday loo fidiyo in imika 1000 dhalinyaro la shaqaaleysiyo 350 la shaqaaleysiyo waxay himmi gelinaysaa oo dareenkooda soo jeedinaysaa dhalinyaradii kale waxay kaloo iyana niyad ku keenaysaa dadkii islaha waxba baranina kala hadhow waa leedin geynayay runtii farxad weyn bay tahay waxaan sidoo kale ugu faraxsanahay dhammaan guusha ay jaamacadooda gaadhay anagu ma aanan gaadhin idinka sheegan bayno dhammaan waa nala leedihiin sida caawan nooc sunteen oo idinka mid nahay ba anagu idinkaanu nahay idinkuna anaga tihiin sidaas baynu wada leenahay sidaas aynu dad is ahaw nahay runtii guusha jaamacadu gaadhay waa guul weyn waxa dhacaya tartankii shaqo qaran baa isaguna dhacaya imtixaan loo gelaya kaana waxa rajayn doonaa inuu guul ka soo hoyin doono dadaala oo kor qaada dadaalkiina way waxaad maanta aad maskaxdaada aad ka keento aad ku dadaasho ayuun bad ka baahneen kamida dhalinaysa ugu dambeyntii halkaasi waxa ka hadlay madaxweynaha jaamacadda Togdheer Professor Fuad Aadan Cabdullaahi waxaanu si weyn ugu mahadnaqay ardaydaasi guuleysatay isagoo tilmaamay in ardaydaasi sumadu yihiin tayada aqooneed ee taalla jaamacadda Togdheer ardayda loogu abaalguday sharaftayda inay muujiyaan waxaan saa u leeyahay ardaydaasi waxay ka marxaati kaceen macallimiinta halka fadhida waxay barayeen waxay ka marxaati kaceen sharafta iyo tayada iyo heerka sare aqoonta jaamacadda Togdheer taalla ayay ka marxaati kaceen waxa qalbigaygu farxad aawadeed ilmeynaya in guushiyaan in badan rajayn jirnay ee aanu aniga iyo tiimka jaamacadda maamula inaan midho dhalkeedii aanu had iyo jeer marxaatiyadeedii aanu ka arkayno gobolka iyo Soomaaliland inaan midho dhalkeedii iyo dambe mustaqbalkana idinkeeda ka arkayno waxaan ognahay xaqiiqa xilliga xalwada waa la wada qoslaa laakiin xilliga waqtiga adag qofka tayada leh ee dunta leh ayaa ku soo hadha waana sababta aynu guuleysanay dhamaanteen ardaygalkan ka taagnaana oo qiray dhammaan ardaydii jaamacadda waqtiga adag soo qaadatay waxay hayeen geesiyaal nolosheeda ku xusan Khalid Bakeyle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.